بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن إذا لهانتي بداوضي الملكستو أن نقد ونيسان halkani waa stuudiyaha koobaad ee telefishinka badda cas uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaa la soo gaaray amirtan idin soo gudbin jirnay war wixii dalka gudihiisa daafaca caalamka naga soo gaaray. Wararkaasi waxaa si toos ah la socodsiin doona haddii Rabbi Raxmaan Raari ka ahaado. Waa anigu Cabdulle Maxamed Cabbaasa. Haatana daawadayaal u diyaar garooba qodobada wararkayga ugu doorkaroon. dalalka ku midoobay ururada goboleedka IGAD oo maanta shir uga furmay caasimadda dalka Djibouti. wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland ayaa maanta safar shaqo ku tagay magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaaga. Abwaan Yuusuf Shaacir oo maanta magaalada Hargeysa ku shaaciyay inuu guud ahaanba ka baxay fanka. dalka Greek oo ku eedeeyay dalka Turkiga inuu taariibayaal tiro badan u gudbiyo sanadkan si dhamaanaya 2020ka. akhyaarta hawada nagala xidhiidhay kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu doorkaroon. haatana u diyaar garooba qodobadaasi iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan. wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland ayaa safar shaqo ku tagay magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaaga sidoo warkaasi oo faahfaahsan inagu hayo Siciid Muuse. wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada madaxda gobolka Sanaaga ee Ceerigaabo ayaa maanta soo kormeeray qaybta dabgelinta ee isbitaalka guud ee degmada Ceerigaabo oo maalmihii ugu dambeeyay laga waday mashruuc cadceed lagaga dhalinayo korontada taasi oo isbitaalka magaalada Ceerigaabo uu kaga maarmayo korontada qarashka ahayd sida uu wasiirku sheegay. waxaana kormeerkaasi kadib wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Maxamuud Cigaal oo ka hadlay habsami u socodka mashruuca dabgelinta isbitaalka Ceerigaabo uu yiri nimka u soconay oo halkan isbitaalka u soo maray waxa weeyaan kormeer aan eegno bal sida ku dhamaatay shaqadii laga waday isbitaalka ee ahayd dabgelinta dabkaas oo aan ugu talagalnay in uu solarka noqdo oo laga maarmo solarkii dabkii magaalada oo ku joogay dhaqaale kharashka ku joogay isbitaalka kaasoo laga yaabo maanta mar haddii ay u baaqatay lacagtii kaga bixi jirtay leerka waxaan ka filaynaa maamulka isbitaalka inay u adeegsadaan horumarinta kharashka kaga bixi jiray u baaqday inay u adeegsadaan tayeynta iyo horumarinta adeega caafimaadka ee gobolka. taasaa ujeedadu tahay, taasaa siyaasadda xukuumaddu tahay in xoogga la saaro wixii horumarin lagu sameynayo adeega bulshada haday tahay caafimaad haday tahay waxbarasho. wasiirka macdanta Soomaaliland waxa kale oo uu ka hadlay socdaal uu maalmihii ugu dambeeyay ugu maqnaa dhulka buuraleyda ee waqooyiga Ceerigaabo waxana uu sheegay in wax soo saarka macdanta ay soo arkeen isla markaana ay mashaariic badan ay u soo socoto gobolka. waxana uu bulshada ugu baaqay in si nabadgelyo ku jirto ay wax soo saarka macdanta uga faa'iideystaan. wax soo saarkiiba isaguna aanu ka dhimiyo wax soo saarka macdanta oo mashaariic badan ay u soo socoto gobolka iminkana aan mid soo daafuray qaar badanna aanu filayno in la furo. Ceerigaabo waa meel hodana ama gobolka Sanaagba waa meel hodana laakiin wadanka intiisa kalena ka durugsan adeega bulshada iyo khayraadka iyo wax soo saarkuna uu markaa ku yaraaday mar haday wadadii furantay oo wadadii la sameeyay waxa soo raacaabo waxa weeyaan wax soo saarkii inay Ceerigaabo xoogga saarto macdanta oo ilaahay gobolka ku banaystay oo aanu wax khayr leh u rajeynayno in laga faa'iideysto si nidaam leh oo aan dhibaato lahayn oo aan dhib inagu keenin oo baraka u yeesho in si miyir looga faa'iideysto. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan Faradheere ayaa wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta uga mahadnaqay dabgelinta ay wasaaraddiisu ka hirgelisay isbitaalka Ceerigaabo waxana uu ka sheekeeyay baahiyaha dhinaca korontada ee isbitaalku qabay. kuna uu shidnaan jiray waqti
kooban shidnaan jiray haddana uu yahay day and night oo habeen iyo maalin noo baxayo oo waxba aanay nagaga xumayn aad iyo aad baanu run ahaantii hawshaa waxaanu jecelahay inaanu xil iska saaro annana maadaama aad rakibteen idinku wasaaraddu ay xil iska saartay annana inta kale xil iska saaro saan u dayactiran lahayn oo ilaashan lahayn baana ka yaqaanaa gobolka Saciid Qurbaawi warbaahinta Badcas TV Cerigaba dalalka ku midoobay urur goboleedka IGAD oo maanta shir uga furmay caasimadda dalka Djibouti sidoo warkaasi oo faahfaahsan inagu hayo wariye Cabdi Samed Cali Axmed magaalada Djibouti cariga wadanka Djibouti waxa maanta si rasmi uga furmay shiraan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen dawladaha ku midoobay urur goboleedka IGAD shirkani oo abaara labadii duhurnimo oo maanta waxada ka furmay wadanka Djibouti ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynayaasha Djibouti Soomaaliya Kenya iyo ra'iisul wasaarayaasha Itoobiya iyo Suudaan iyo madax ka socotay wadamada kale xubnaha ka IGAD ugu horeyn waxa shirka furay xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD waxaanu dhammaan soo dhaweeyay xubnaha ka soo qayb galay shirka and welcome to Djibouti. kusoo dhawaada Djibouti oo ay ku taalo xarunteena guud waxaan u mahadnaqayaa dhammaan xubnaha u soo socdaalay halkani aynu ku sugannahay shirkeena waxa diiradda lagu saari doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan arrimaha gobolka gaar ahaan wadamada xubnaha ka ah IGAD waxaana soo dhaweynayaa madaxweynayaasha Soomaaliya Kenya Djibouti ra'iisul wasaaraha Itoobiya ra'iisul wasaaraha Suudaan iyo madaxda kale ee goobta ku sugan intaasi kadib waxa asaguna halkaas ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaanu soo dhaweeyay dhammaan xubnaha shirka ka soo qayb galay ee soo gaaray wadankiisa I am delighted to welcome you all to the 38th extraordinary summit of IGAD heads of states and governments. waxaan soo dhaweynayaa xubnaha ka soo qayb galay shirkan aan caadiga ahayn anigoo ku hadlaya magacayga iyo ka shacabweynaha dawladda Djibouti waxaan si diiran u soo dhaweynayaa xubnaha urur goboleedka IGAD ee shirkan caadiga ahayn halkan isugu yimi ee ka soo kala kicitay meelaha kala duwan Djibouti waxay markasta diyaar u tahay sidii ay uga qayb qaadan lahayd xasiloonida iyo ilaalinta nabadda gobolka shirkuna waa uu inoo furan yahay Muuse Faaki Maxamed oo shir gudoominaya shirkan aan caadiga ahayn ay isugu yimaadeen wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobada muhiimka ah in shirkani lagaga hadlo isla markaana laga soo saaray Today the Horn of Africa finds itself in a very particular situation wadamada gobolka oo dhami waxay la tacaalayaan xaalad isku mid ah wadan kastaana waxa uu ku dadaalayaa in dalkiisu noqdo mid nabdoon oo xasilooni ku soo kordhiya gobolka sidoo kale intii shirku socday waxa uu shirgudoonku soo qaaday xiisada diblomaasiyadeed ka dhex xaloosan wadamada Kenya iyo Soomaaliya shirgudoonku waxa uu sheegay in Soomaaliya Kenya ay hore u lahaan jireen xiriir diblomaasiyadeed oo qoto dheer oo soo bilaabmay waqti hore loona baahan yahay in wax kasta lagu dhameeyo miiska wada hadalka Kenya waxay qayb ka tahay taageerada Soomaaliya iyadoo ciidamada Kenya ay qayb ka yihiin ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya AMISOM sidoo kale waxay martigelisay Kenya qaxoonti badan oo Soomaaliya kuwaas oo wadankeeda ku noolaa tan iyo intii ay burburtay dawladii dhexe ee Soomaaliya iyo midowga Afrikaba waxay ka hawlgali doonaan sidii xal looga gaari lahaa arrintaasi Abwaan Yuusuf Shaacir ayaa maanta magaalada Hargeysa ku shaaciyay inuu guud ahaanba ka baxay fanka sidoo warkaasi oo faahfaahsan inagu hayo Cilmi Maxamed abwaan Yuusuf Shaacir oo kamid ah abwaanada waaweyn ee Soomaalida oo maanta qayb ka mid ah warfidiyeenka kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay inuu guud ahaan iskaga baxay fankii iyo sidoo kale fanaaniintii uu dhiibi jiray heesahana uu joojiyay abwaanka ayaa sababtaasi ku sheegay hadallo maalmihii ugu dambeeyay si weyn loogu hadalay baraha bulshada kuwaas oo la xidhiidhay inuu abwaanku iskaga baxay oo baraha bulshada aad loo wareejinayay cid gaar oo aan u jawaabayo ma aha laakiin waa is-eedreebis aan iska eedreebayo jimcihii doraato ahaa waxaanu ka qayb galnay kulan muxaadaro ama nadwe ah oo dad badan ka soo qayb galeen qolyo hore oo fanka ku jiri jiray oo ka baxay iyo wadaado iyo dad saasaba isugu yimi marka anigu eraygan qaatay wuxuu ahaa fanka iyo taariikhdiisa xilligu inoo yimi siduu nagu soo galay iyo siduu maanta yahay waxa kale aad u faahfaahiyay erayga fan عربي marka loo isticmaalo wuxuu noqdo iyo Soomaali marka loo adeegsado ereyga fan wuxuu noqdo hatta waxaan tusaale u soo qaatay in la yiraahdo hebel fandada baanu leenahay ayaan tusaale soo qaatay sharaxa dheer markan ka soo baxay waxaan ku gabagabeeyay fanka inaanan anigu ku jirin oo aanan ahayn dadka fanka ku suntan ee ku caanka ah ereyga markan leeyahay ujeedadeedu waxay ahayd fanku hees la isu dhiibay maaha
fanku waa barnaamij dhan oo nololeed oo dad ku suntan yihiin oo ay ka qayb galaan xataa barihii la bilaabay walaalaha Hargeysa oo kale waxaaba la iska qaadi jiray fee qofka walaalaha Hargeysa galay oo kale waladii waa bari waa la garanaya iyagana sidii lagu aasaasay fanku waxa weeye barnaamij dhan oo qofkaasi ka mid yahay oo aqoontiisa u barto haday laxan la saaraya tahay haday qalabka la tumaya tahay haday luuqda tahay waa barnaamijka dhan ee nololeed tusaalaan ku siinaya xasan qawdhan abwaankii loo oranay Ilaahay u naxariistay heesaha ugu badan iyo riwaayadaha ugu badan ee ugu caansan buu leeyahay aad sheekadeeni inta sirisay dumarkii isaga leh aynu guri yagleele geestada ila qabay isaga heesa badan caan u leeyahay laakiin nin fanka ku dhex jiro shaqo ka dhigta mu ahayne nin iskii u shaqaysta buu dabatana la isuma aqoonin xasan iyo heesiisa la isuma aqoon tusaalaha kale haddaan heesi imika anigu fanaan u dhiibo heesta aniga la aqoonsan maayo fanaanka qaaday baa dadku aqoonsanaya war xasan aadan inoo shid baa la oranaya sayla inoo saar xasan aadan laakiin xasan gana inoo saar oo sayla la oran maayo hadiya jeer heesta waxa qaata qofka fanaanka ee qaadaya حتى موسيقى نك تومي لما يقان كلحن كساري لما يقان كأريادة لما يقان وحلا يقانون حسن آدن يهستيس أما خطرات داهر يهستيدي أما مقول يهستيدي ساسا فنك لو يقان على كل حال برا برشة وحركة يدو آدلو لي هاي فنك واد كوتشرت أنا وابن كوتشر إما كابن لي هاي هذا أصلا كدكتين وابن كوتشر لكن هذا كبح إلى هاي درتي أيام مكوجا بح هذا نيكا قال ها وركم تشيرو هدي لو سو دعينا waxaan arkay qaar yiri udubdhaxaadkii fankaadahay kii kale fankaadahay waxaan ahaa udubdhaxaadkii fanka waxaan ahaa ragii fanka hogaaminayay waxaan ahaa ragii macnaa u yeelay taas aad doonaysan Soomaha intaaba waan ka baxay ilaahay dartii baan uga baxay ku noqon maayo heesta ma qof dambe u dhiibi maayo war halka hadaba wax ka raadin doonta hadaba imikana halka aad wax ka raadin imikana ii sheeg waa cilmi maxamed Umar al-Muraj wararka telefishinka Badacas Hargeysa gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ayaa ugu baaqay dadweynaha gobolkaasi inay qaataan kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland sidoo warkaasi oo faahfaahsan inugu hayo Nuux Maxamed gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Salebaan Doob oo maanta warfideenada kula hadlayay xafiiska uu xisbiga wadani ku leeyahay gobolka Togdheer ayaa waxa bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay sidoo kale deegaanada hoos yimaada inay ka qayb qaataan kaarka diiwaangelinta doorashooyinka Soomaaliland oo 27 bishan aynu ku guda jirno la filayo inuu ka bilowdo gobolka Togdheer sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer waxa uu kubishka doorashooyinka Soomaaliland iyo xukuumadda ugu baaqay inay qayb laxal ka qaataan sidii ay u heli lahaayeen dadka barakacayaasha ee ku nool dowladka gobolka Togdheer ay u heli lahaayeen kaararkii codbixiyaasha waxayna bilaabaysaa diiwaangelintii 27 bisha dhammaan dadweynaha gobolka Togdheer waxaan ugu baaqaynaa xisbi ahaan inay isdiiwaangeliyaan cidii aan haysan kaarka codbixiyaha muwaadinka waxa u muhiim ah inuu qaato kaarka codbixiyaha oo wax ka go'aamiyo talada dalka cidda uu isagu u dhiibanayo waxay nagu soo foole oo aynu wada ogsoonahay 27 bisha inay bilaabmayso diiwaangelintii gobolka Togdheer dhalinyarada iyo dadkii hore aan u qaadan intaba waxa laga rabaa iyo cidii uu ka lumay loo bedelayo intaba waxa laga rabaa in ay qaataan oo ku dadaalaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadweynaha inay la shaqeeyaan goobaha komishinka jooga ee dadka diiwaangelinaya laguna gacan siiyo shaqada ay hayaan waxaan kaloon dadweynaha ugu baaqayaa gobolka Togdheer inay la shaqeeyaan ciidanka nabadgelyada oo ay safafka iyo goobaha la joogo ay kala shaqeeyaan amniga inaanu iska buuqno oo durbaana iska qaadano xilliga campaign-ka adigoo aan haysanba card waxba kuma tarto laakiin waxa ku goysa adigoo card haysta in aad maxay haytoy aad qabsato shaqadaada waxaan kaloon halkan uga soo jeedinayaa komishinka qaranka iyo ka gobolkaba sanaaduuqdu la dhigay goobuhu kolleyda way xadidan yihiin laakiin waxa loo baahan yahay waxa jira ADB-yo gobolka Togdheer ku soo kordhay oo ilaa 5-6 ADB oo dhinaca koonfureed magaalada ka xiga oo aan sanaaduuq lahayn dadkaasi waxay u baahan yihiin waa muwaadiniin wadad xoolahooda baxaan inay xuquuqdooda helaan bay u baahan yihiin xuquuqdooda muwaadinimo inay helaan bay u baahan yihiin arrinka komishinku yaala taasina sidii loo maareyn lahaa
ama gaadiid loogu diri lahaa maxay tahay dee ku filan oo xukuumaddu ay ugu diri lahayd maadaama dadku ay yihiin dad qaxoontiya ama maxay tahay commissionku goobo fidsan oo matalan sanaaduuqda B iyo A iyo C hadday meel wada yaalaan matalan B oo kale dee iyaga loo dhigi karo ama C oo kale loo dhigi karo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer aan weydiinay su'aal ahayd sidee diiwaangelinta uga hirgelaysa deegaanada gobolka Togdheer ay ka guureen dadkii reer guraaga ahaa ayagu waxa uu ku jawaabay sidan gudoomiyaha waxa sheegtay in bulshada gobolka Togdheer aad ku wacyigelinayso inay qaataan kaararka sideen wada ogsoonahay bulshada gobolka Togdheer waa dad xoolo dhaqata badiba deegaanada gobolka Togdheer waa laga hayaa dadkii uu ka guuray bal taa ka xisbi ahaan adigoo eegaya haddii dadkii deegaanku ay ka hayaameen inay joogin sida kaar looga qaadan karo deegaanada horta dee kaarka hore waynu haysanaa way jirtaa taasi watan horeba ugu daray kaarka hore dadkeenu uu haystaa 140 kun baa inoo yaala gobol ahaan laakiin dayarteennii soo kortay iyo dadkeennii inaga maqnaa aan xilligaa jaanis u helin way dad kala diiwaangelinaya taana waxa weeye ka xusbi ahaan waanu ka howlgallay in gobolka Togdheer la dambaysiiyo iyo in maxay tahay wax lala qabtaba waan isku daynay laakiin qaran ahaan baa la isla qaatay in maanta laga wada shaqeeyo si aan doorasho dib inooga dhicin in diiwaangelinta la fuliyo marka musharaxiinta iyo maxay tahay cid danaynaysaaba way ka shaqeynayaan xisbiguna waa kamid qaybtiisana uu ka qaadanaya insha Allah hadalka gudoomiyaha ayaa ku soo beegmiyay xilli 27 bishan ay komishanka doorashooyinka Soomaaliland gobolka Togdheer iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada ay ka bilaabayaan kaararka codbixiyaasha nuux maxamed cabdi badda 24 TV magaalada Burco dadweynaha degmada Arabsiya ee gobolka Murudijeex ayaa soo dhaweeyay xiriirka cusub ay wada yeesheen Soomaaliland iyo Malawi sidoo warkaasi oo faahfaahsan inagu hayo Naasir Cabdulqaadir ee cunsuriga Soomaaliland xanuunka ka qabaana waxaanu leenahay hadba meesha noo timaadee maanta cilaaqaad nala yeelata isaguna xiriirka ha u jaro cid la marana soo joogsado madaxweynaha iyagana waanu hambalyeynaa telefishinka caalamiga ee badda 24 TV oo mikrofoonka la dhex qaaday bulshaweynta ku dhaqan degmada Arabsiya ee gobolka Gabiley ayaanu wax ka weydiinay sida uu arkaan safarka uu Soomaaliland ku yimid wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Malawi kaasi oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu maalintii shalay ahayd uu ku qaabilay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland shacabka ku dhaqan degmada Arabsiya ee gobolka Gabiley ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay safarka uu ku yimid wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Malawi ee Soomaaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa wallahi waxaan u arkaa dawladdan Malawi ee saaxiibtinimada fiican ay la sameynay xiriirka ayna dhex maray shalay toole wasiirkooda arrimaha dibadda uu soo gaaray dalka Malawi waxa weeyaan dal aynu isku maxmiyad ahayn waxa weeyaan dad inaga dambeeyay xagga xornimada 4 sano dawlad ahaan Ingiriiska wada haystay waxaan leeyahay saaxiibtinimada iyo xiriirka aynu yeelanay waan soo dhaweynayaa aad baan soo dhaweynayaa ka bulsho ahaan shacab ahaan waxaan leeyahayna dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland horumarka iyo tallaabooyinka ay qaadaysa aad baa loo bogaadinayaa dawladii hore ka horeeyay xukuumadii ka horeeyay si fiican ay tallaabadoodu ugu duwan tahay xagga wasaaradda arrimaha dibadda waxaan leeyahay wasiir Faratoon hawshaad ku jirto iyo safiirada aadka uga qayb qaadanaya xiriirka aynu Jamhuuriyadda Soomaaliland la yeelanaysa caalamka iyo ururka IGAD iyo OAU-da tallaabooyinkaas aad muhiim yihiin wadanka Malawi waa wadan aynu isku taariikhnahay aynu isku dadnahay aynu dadka kale Afrika iska xigno isku maxmiyad ahayn waxaan leeyahay tallaabada la qaaday ee ku xigtay safarkii madaxweynuhu uu kaga yimiday wadanka Kenya aad baan u soo dhaweynayaa xidhiidhada soo taraya saaxiibtinimada soo taraysa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay qaaday waxaan soo dhaweynaynaa wafdiga qaybaha iyo qaayaha leh ee Malawi ee boqoshada noogu yimid ayaanu soo dhaweynaynaa haddaanu nahay reer Soomaaliland ama reer Arabsiya haddaanu nahay waxaanu leenahay soo dhawow welcome kaalay halkan wadanka meesha doonta soo mar oo kaalay baanu leenahay waxa ka turjumaysaa siyaasaddeena dibadda arrimaha dibadda ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayo waxay ka mid tahay goolihii uu ka soo hooyay Kenya ayay ka mid tahay oo horsocod u tahay waxa weeyaan Tanzania laftigeed waxaan ka maqlaynaa maxaan ku sheegay laftigeena inay aqoonsatay Soomaaliland aqoonsatay Malawi isna waa dal kale oo xuduud la leh maxaan ku sheegaa Tanzania oo wadamada haraha weyn baa la isku raadaa waxayna ka mid yihiin dalalka ka midka suuqa weyn ee Commonwealth-ga ee Ingiriiska dawladda caalamkayna siisay ee Ingiriiska
marka waxa weyn Soomaaliland taariikh dheer ayay u furaysaa maxaan ku sheegaa wadannadii calanka qaatay baan u soo dhaweynaynaa wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Malawi ee Afrika aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa faa'iido weyn baana xidhiidhka halkaa ka bilaabmaya inoo keeni doonaa tiyo marka horeba arrimaheenu baryahan dambe ay heer wanaagsan marayeen kana wuu sii xoojinayaa waxaan rajaynayaa inuu noqdo maaragtay wafdiga iyo maaragtay hawlahaas iyo xidhiidhka cusubeyna dhex maray ku sii xoogaysta Malawi iyo xidhiidhka Soomaaliland waa xidhiidh aad iyo aad u wanaagsan anaguna ugu faraxsanahay ku dhaqan jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland waxaan leenahay dadka Malawi ku soo dhawaada Malawi oo khaas ah wadamo badanna aad baan ugu soo dhaweynaynaa itraafna insha Allah way imanaya marka hadan xagayga ray ahaantayda u soo jeesto waxaan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa ray ahaantayda xidhiidhka ka dhaxeeya Malawi iyo Soomaaliland wadamo kale oo caalamka ka mid ah in saas oo kale xidhiidh caalami noola sameeyaa ma jecelahay waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa dalka Malawi oo xidhiidh cusub inala sameeynaya oo leeyahay soo dhawaada gacmo furan soo dhawaada waxaan leeyahay xaasidiinta xamar ku nool hana soo eegino hoostiina eega isha iyo awrid iyo qumeeyada wadana idinka ay ku koobnaato laakiin anagu waan idin ducaynaa idin habaari mayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dalka Malawi ay la yeelatay Soomaaliland anagoo shacabweyni ku nool ah degmada Arabsiyo gaar ahaan Soomaaliland haddaan nahay shacabka Soomaaliland waxaan soo dhaweynaynaa oo aanu hambalyeynayna taariikhda cusub ee maanta aanu galnay anagoo ah oo la galnay dalka Malawi aad iyo aadna waanu hambalyeynaa aad iyo aadna waxaan u hambalyeynaa wasiirka noo yimiday ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Malawi oo si fiican oo milgeeyo sharaf leh noo maamusay oo noo xushmeeyay oo na ka shaqeynaya aqoonsiga Soomaaliland waxaan ku hambalyeynaa intaad noo qabatay in leeg ayaan adigana ku tari doonaa hadii Ilaahay dhaahdo Malawi iyo Soomaaliland xiriirka ay wada leeyihiin waanu ku faraxsanahay waxaanu leenahay hambaliyo guul baad soo hoysay meel walba waxaanu leenahay Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliya ee cunsuriga Soomaaliland xanuunka ka qabaana waxaanu leenahay hadba meeshana noo timaadee maanta cilaaqaad nala yeelata isaguna xiriirka ha u jaro cid la marana soo joogsado madaxweynaha iyagana waanu hambaliyaynaynaa hambaliyo boqol jeer Malawina waxaanu leenahay dad baanu nahay wax soo saar leh tabac leh nabadii haysta isku tashaday cid walba ka soo go'ay dawladii Soomaaliya la oran jiray ee hore walaaltinimadii iyo wanaagii iyo kalgacaylka ugu tagnay maanta waxaanu leenahay bye bye kala tagnaya qoomamala aadaanu leenahay waxaanu soo dhaweynaynaa cidii calaaqaad nala yeelata cidii saaxiib nala yeelata ama Afrika ha ahaato ama European ha ahaato ciday doontaba ahaatee waxaanu leenahay waanu soo dhaweynaynaa dadka madaxweynaha iyaguna madaxweyne dadka Eryama waa madaxweyne soo dhaweeya dadka iyo caalamkaba hambaliyaanu leenahay waanu hambaliyaynaynaa walaa cilaaqaad nala sameysaba waanu soo dhaweynaa gacmo furan wadanka Malawi gacmo furan ku soo dhaweynaa anagu shacabweynaha ku dhaqan degmada Arabsiya ee gobolka Gabiley ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay safarka uu wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Malawi uu ku yimid Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kaasi oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu maalintii shalay ahayd xafiiskiisa xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland uu ku qaabilay siyaasi Cabdikariin Axmed Mooge ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta Soomaaliland inaanay bulshada ka dhex abuurin qabyaalad sidoo warkaasi oo faahfaahsan inugu hayo Maxamed Cali Xaashi Cabdikariin Axmed Mooge oo kamid ah murashaxiinta golaha deegaanka magaalada Hargeysa oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka Badda Cas ayaa waxa uu sheegay sida uu arko shakhsiyaad iyo dhalinyaro kala duwan oo ka tirsan bulshada reer Soomaaliland oo iyagu sheegaya inay u codayn doonaan maadaama ololaha murashaxnimo ee haatan uu ku jira uu yahay mid lagaga waantoobayo isla markaana bulshada reer Soomaaliland si bilaa qabyaalada uu codka kaga doonayo waxa uu sheegay in siyaasiyiinta Soomaaliland loo baahan yahay inay guud ahaan ay ka baxaan qabyaalada iyo qoqobnaanta bulshada dhexdeeda balse ay ku hogaamiyaan waxqabad iyo waliba barnaamijyo muuqda oo lagu hago bulshada
cabdikariin axmed mooge ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa. maan odhan lahaa uun waan soo dhaweynayaa dadka wanaagsan maartay taageeray ee soo dhaweeyay maartay in jidka marno taageersan sida doonaya inaynu halkan u socono gaadhno aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waan ku faraxsanahay waan isii dhiirigelinaysaa waxaan tahay un fariintooda iyo codkoodu inay tahay cabdikariin oo maartay dadaalka si lama laab dib ha u noqonin marka inaguna qaar dib u noqonayo ma nihin insha Allah horeyna u soconaynaa ilaa iyo aynu ka gaadhayna halka aynu u socono in qabiilkan iyo qabyaaladdan lagu hayo waxa ka fiican in meel ka wanaagsan oo qarannimo ah oo wax la wada leeyahay oo dadku wax wada leeyihiin in loo raro marka aniguna waxaan doonayaan ka mid noqdo kuwa Soomaaliland dadka Soomaaliland raraya ee u raraya qarannimada oo aanu aaminsanahay inay ka wanaagsan tahay halkan qabiilka mararka qaarkoodna dhibaatooyin baaba aniga ila kulmo oo markaynu rabno Soomaaliland inuu bedelo oo aynu ka dhigno dal wanaagsan oo qurux badan oo dimuqraadi ah marka shuruucdeenu ay qabto in laga guuro nidaamkii beelaha ku dhisnaa oo loo guuro dimuqraadiyadda iyo nidaamka asxaabta faraha badan waxaynu ku khasbanahay inaynu qof kastoo musharaxi dadka wadadii uu mari jiray qabiilka ahayd inuu ka bayro si uu la jaan qaado ujeedooyinka waaweyn ee qarankani leeyahay oo ah in nidaamkii beelaha ku dhisnaa laga soo guuro anigoo taa ka duulaya ayaan go'aansaday inaan wadada saxda maro muddo fara badan hadda waxaan u ololeynayay in la kala saaro qarannimada iyo qabiilka marka way ila noqon weyday in wada qaldan loo maro qofku markuu isbedel rabo isbedel fiican oo dalkan horumar gaarsiin kara wadada quraata ee loo mari kara isbedelka waxay wadada saxda ah marka waxaan go'aansan wadada saxda ah maro waan garan karaa wadadani waa wada dhib badan waa wada qodxa badan waa wada dhagaxaan badan yaalaan waa wada dadka Soomaaliland qabiileeyay ee qabiilku macaashka siyaasadda ku guuleystay iyagoo soo fuulaya salaanada qabiilka waa wada ay maartay dagaalka la hor imanayaan laakiin waxa wanaagsan inay ogaano inay tahay wadadii saxda ahayd wada sharciga iyo shuruucda Soomaaliland maartay ku qotonta wado in ka turjumaysa wixii aan u taagnaa muddo fara badan wado aan isleeyahay Soomaaliland cusub ee la doonayay in la sameeyo mustaqbalka ayay ku geynaysaa sidii lagu heli lahaa marka runtii waa go'aan aan ku qaatay si sax u qaatay goor sax qaatay dariiq saxana aan u maray marka dadkayga sharafta mudan ee gobta waxaan raaddaa Soomaaliland waa shacabka Soomaaliland waa gob madax wanaagsan weeyday baan raaddaa wadad wanaagsan ummadaha adduunkana madaxda ka xeeya madaxda raro oo halkii hore u joogay inta ka kaxeeyay meel kale waxaa jiray xilliyadii diiwaangelinta in shakhsiyaad kala duwan oo isdiiwaangeliyay ay sheegayeen in aragtida amba mowduucyada uu soo bandhigay cabdikariin axmed mooge murashaxaasu ay tahay mid bulshada Soomaaliland ay ku dooran karto waa maxamed cali xaashi telefishinka badda cas magaalada Hargeysa daawadayaal waxaan warbixin idinka haynaa taariikhda dalka Malawi kaasi oo ay dhawaan xiriir cusub wada yeesheen Soomaaliland iyo dalkaasi Malawi sidoo warkaasi oo faahfaahsan nagu hayo Maxamed Siciid Gaaxnuuga daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha naga mudano waxaad ku soo dhawaataan warbixin kooban oo aanu ka diyaarin doono dalka Malawi waxa uu dhacaa koonfurta qaaradda Afrika waa dal aan bad lahayn tirada dadkiisuna waxay gaadhaa qiyaastii ilaa 19 milyan caasimada wadankaasina waxa la yiraahdaa Lilongwe waxaana dega qoomiyado dhowr ah qoomiyada ugu badani waa Chiwa oo 34% tirada guud ee dalkaasi ah waana dal dadkiisu haystaan diimo kala duwan qiyaas ahaan diinta islaamka waxa ay dad lagu qiyaasay ilaa 14% waxaanu xornimada ka qaatay boqortooyada Ingiriiska bishii July 1964 luqadda rasmiga ee ku hadla dalkaasina waa English iyo Chiwa dalka Malawi waa dad reer miyiga 85% dhaqaale ahaan waxay ku tiirsan yihiin wax soo saarka beeraha kuwaas oo adduunka u iibgeeya qiyaastii 1234 qiyaasta loo yaqaan GDP-ga dalka Malawi waa dal dimuqraadi ah sanadkii 2019 doorashadii lagu tartamayay
ee madaxweynaha dalkaasi Malawi waxa ku guuleystay Mr. Peter Nuthrita. Dalkaasi waxa la sheegay inuu xidhiidh fiican leeyahay adduunka isagoo ururo badan xubin ka ah sida Commonwealth, UN, Child Agency, MIF, World Bank, African Union, World Health Organization iyo qaar kale badan. dadka dalkaasi waxa lagu tilmaamaa dad saaxiibtinimada iyo soo dhaweynta ku wanaagsan waxaana lagu naanaysaa wadankii dhiiranaanta badnaa ee Afrika. dalka Malawi waxa la filayaa inuu aqoonsado Jamhuuriyadda Somaliland kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Somaliland uu safar ku maray qaar ka mid ah wadamada Afrika oo ay ka mid ahaayeen Kongo iyo dalka Malawi, iyadoo maantana dalka Malawi uu soo diray wasiirka arrimaha dibadda Somaliland taasoo ka wada hadleen xiriirka labada dal. madaxweynaha Somaliland iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi iyo wafdi uu hogaaminayo. dalka UK ayaa ku soo labakacleeyay xanuunka COVID-19 iyadoo dalalka qaarkood laga helay talaalka xanuunka COVID-19. warbixin ayaa idinka haynaa. dalka UK ayaa laga soo sheegayaa in lagu arkay calaamado muujinaya in fayraska corona uu xoogsaday oo calaamadahaasi isbedel ah la yimid waxaana arintani keentay walaac hor leh. Netherlands ayaa joojinaysa dhammaan rakaabka uga yimaaday UK laga bilaabo maanta ilaa bisha January ee soo socota kowdeeda. go'aankan dowladda ayaa si degdeg ah loo gaadhay kadib markii ra'iisul wasaaraha Britain uu sheegay inay sare u kacday tirada kiisaska ee magaalada London iyo hareeraheeda oo ay sabab u tahay isbedelka uu sameynayo qayb dhismeedka fayraska. noocan cusub ee fayraska ayaa loo maleynayaa inuu si fudud ku faafayo wayna adag tahay in la ogaado inkastoo aysan jirin wax calaamado ah oo muujinaya inuu yahay mid daran oo dilaa ah. Britain ayaa haatan la bilaabayaa si loo ogaado qofka fayraskan qaba iyo sida uu ugu dhacay inkastoo fayraska uu yahay mid UK laga helay iyo in kale. hay-adda caafimaadka ayaa sheegtay in xiriir dhow la leedahay saraakiisha Ingiriiska ee ku sugan qaab dhismeedka cusub ee fayraska oo hadda loo sheegay in uu ku baahay magaalada London. dalka Greega ayaa ku eedeeyay dalka Turkiga inuu taariibayaal tiro badan oo Soomaaliya u gudbiyay sanadkan sii dhamaanaya 2020. maamulka dalka Greega ayaa sheegay in tirada Soomaalida taariibka ah ee gaadhaya jasiiradda Lesbos ay sare u kacday tan iyo wixii ka dambeeyay bishii November. dowladdaas ayaa sheegtay in arintani ay tahay mid isku xidhan oo koox iyo shabakado ay ka shaqeeyaan. wasiirka socdaalka Greega waxa uu sheegay in 214 qof Lesbos gaadhay in bishii November 142 ka mid ay yihiin Soomaali. wasiirku waxa uu sheegay in shabakada isu xidhan oo taageero ka helaya hay'adaha aan dawliga ahayn ay ka dambeeyaan Soomaalida ka imaanaysa dalalkooda ilaa ay ka gaadhaan Lesbos. waxaa laga soo kaxeynayaa Soomaaliya waxaana la keenayaa ilaa Greega ayuu yiri wasiirka oo hadlayay. ma uusan sheegin magacyada hay'adaha dawliga ah ee Turkiga ku sugan ee lugta ku leh Soomaalida taariibinaysa. wasiirku hadalkiisa si wata waxa uu shirkan jaraa'id ku soo bandhigay muuqaalo laga duubay Soomaalida oo sheegaysa in Turkiga ay ku tagaan fiiso ardaynimo. waxa uu sidoo kale ku andacoonaya in lacagta ku baxda fiisaha ay helaan dadka inay bixiyaan hay'adaha aan dawliga ahayn una fududeeyaan sida Istanbul ku gaari lahaayeen. hay-adaha aan dawliga ahayn waxa ay bixiyaan kharashka safarada iyo dalkugalka iyo diyaaradaha geeya ilaa Istanbul. sidoo kale hay-aduhu waxay taariibiyaan ka caawiyaan in ay Yurub ku soo galaan si sharci darro ah ayuu yidhi wasiirku. maamulka Ankara weli kama uusan hadin arintan ka soo yeedhay dowladda Greega balse Mitch waxa uu Turkiga ku eedeynayaa in uu ku guuleystay in uu raaco heshiiskii 2016 ee taariibka la xiriira ee midowga Yurub uu la galay. heshiisku waxa uu ahaa in la qabto dadkaasi lana badbaadiyo sidoo kalena dadka ka shaqeeya taariibinta laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan dadkaasina lagu celiyo dhulalkii ay ka yimaadeen. daawadayaal intaasi waxaan ugu soo gabagaboobay warkeeni habeenimo oo kala socoteen xarunta guud ee telefishinka Badda Cas uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. warka waxa si toos ah la socodsiinayay waa aniga Cabdulle Maxamed Cabbaasa. intaynu warka xiga ku kulmi doono dhammaantayba waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.